السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وطنيني داقي كوادي أدونك قيبتي سي سدحات. wadamada xooga badan oo sameystay ciidamo aad u xoogan waxaana aad isku habeeyay wadamada Ruushka iyo Jarmalka si ay u qaataan qayb ka mid ah wadamada Balkaniska. Haddaba maxaa keenay in dagaalkani loogu yeero dagaalkii koowaad ee dunida? Dagaalkan oo dhacay intii u dhaxaysay 28 Juun 1984 ilaa 11 November 1998 ayaa waxay kasbatay in loogu yeero magacan caalamiga ah, waxaana ka qayb qaatay dagaalkani 28 dowladood. 24 ka mid ah waxay ahaayeen dhinaca xulafada, halka 4 ka mid ahna ay ahaayeen dhinacii Jarmalka. boqolkiiba 93 dadka dunida ku noolaa ayaa si toos ah iyo si aan toos ahayn uga qayb qaatay dagaalkan. Dagaalkan ayaa ka wada dhacay 3 qaaradood oo kala ah Yurub, Aasiya iyo Afrikaba. Yurub waxa uu ka dhacay Balkaniska, Talyaaniga, Daanta Bari iyo Daanta Galbeed ee qaaradda Yurub. Aasiyana waxa uu ka dhacay wadamada Masar, Falastiin, Ciraaq, Dardanelles iyo dhulka loo yaqaan Qowqaas. Afrika wuxuu ka dhacay galbeedka Afrika, halka Basifikana uu ka dhacay jasiirado yaryar oo uu xukumi jiray Jarmalka oo uu gumaysan jiray. Waxay ahayd dagaalkii ugu horeeyay ee la isku adeegsado weerarka ee la iska weeraro dhulka, cirka iyo baddaba. Waxaa la isku adeegsaday hubkii ugu casrisanaa waqtigaasi. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar, noona sii share garay channelkan adigoo mahadsan. Daawashadaadana waad ku mahadsan tahay.